بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu si weyn u cambaareynaa xariga loo geystay xogayaha xiriirka arrimaha carabta ee xisbiga wadani mudane ambassador Safina oo shalay lagu xidhay dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi waxaan la wada soconaa Safina ismay haynin muwaadin Kenyan ah soo sharcigu dhigayo oo dacwad maxkamad kaga soo oogay shirkad ganacsi oo Kenyan ismay haynin hay'ad kale oo dawliyo Kenyan ismay haynin حسب معارضة أما محافظة وكينيا كدسن اسمها هينين مواد سومالنا أو درشة سومالنا وطا أو ذلك سعودي ككنون وكل سعودي وترانسيت كينيا كوها وهولا جارا يكوا حسب فلين يبو أيوها ما جرن كره إنه شرع جمال أي كجا قرن تهاي قف ترانسيت ذلك كوا إن الحرا كو دولة كينيا وحنوجو باقي إن مواد كحرية ديسا وسعودي سو اليوم مواد كرئيس سومالنا maadaama oo xukuumadda xaqiisa iyo xurmadiisa dhowrayso oo hadlaysa aanaysan jirin talabaad xisbi ahaan waxaanu rumaysanahay xariga muwaadinkaasi inuu yahay shirqool dhagaraysan oo cadaawadaysan oo cadaawad ka baxday xayndaabka Soomaaliland oo meel kasta galaysa ah oo muwaadinimadii iyo karaamadii qofnimo aan la ilaalinayn cidda ku salle ficilkaas samaysana waxaan rumaysanahay inay tahay dadku isagu maagayay ee ganacsatada ee uu ku eedeynayay inay ganacsiga inta ka yimaadeen siyaasadii faraha ay la galeen ee taladii xisbiga kulmiye iyo mudnaantii xukuumadaba inay leexiyeen oo marin habaabiyeen dadkaas runtii xarigiisa ka dambeeyay waxaan iyaga ugu baaqaynaa gaar ahaan xukuumadda dadka noocaas ee sawirka ganacsi huwan ee haddana siyaasadda ku milmay inta laba sharciga waafaqsan laga qabto kana adkaysan meena kana aamusumeena xaqa waanu ku adimeynaa dawladda Kenya ixtiraam baan u haynaa waa dal aanu qiimeynayno waa dal xiriir diblomaasiyadeed oo fiican aanu rajaynayno in xukuumadeedu la yeelato waa dal aanu doonayno inuu ka mid noqdo hormoodka dalalka Soomaaliland ictiraafaya marka mas'uuliyiinta hay'adaha amniga dalka Kenya iyo xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa muwaadinkayaga inay degdeg xorriyadiisa ugu soo celiyaan Safina dalka transit buu ku ahaa oo qof muwaadin oo Kenyan oo Hargeysa transit ku noqonaya كو اسمه هينين بانيري مواد رأي كينيا والدعوة إسقى حسب جوسو حقيقي إسقى حسب جوسو حقيقي أو شيء إن أنا تعيد ما دركتيي جلدي الجشي وكده حيا أين كينيا كنورين هاي الدولة كينيا اسمه هينين مواد كينيا اسمه هينين محكمة لمسارين حرقيس عدة حلاشته وشرقال أي ملايين ضدكو يسوقوا كأنانية إن السياسة السومالية مرن حبابنا أجمع واحد من مسؤولين حسب جوجس الرئيس مشرح مدحونا حسب مدن عبد الرحمن عير الله صحيح كانس كان مبوبة هلين وقف محبوس حرية دي سلقة قاعدة تليفون دي سلقة مركب لقى قاعدة يو دبليس قبتين بوها مركا أون سبوت مركب بليس قبتين إلى هذا واحد حلنت هاي تليفون كقدوميو هاي تليفون كقدوميو صار شيئين وحرية هاي ونا أنا حرقيسة كوحدة لكن مركب حرية دي بلقى قاعدة مركا accessibility fara badan oo fursad noocaas ku bixiyo meeshan jira Safina maalintu bartan ka baxayay cidbu ayuu carabka ku dhuftay oo si adag uga hadlay uu mashraxa siyaasadda Soomaaliland ama ha soo galaan ama ha ka baxaan oo ganacsigooda ku ekaadaan marka cidda linkage-ka ay la leedahay aan anagu ictiqaadsanahay rumaysanahay ninkan waa fikir siyaasi ah waa nin xisbiga ka tirsan waa nin xisbiga walaalaya marka cidda ay yihiin anaga shakina kagama jiro waana cadeynaa marka loo baahdo horta baaristiisan iyo hawshan horaha u soo dhamaato cidda ahayd inay cadeyso muwaadinkan horta marka laga yimaado xisbi ahaan iyo ideology-gu rumaysan yahay ciddu muwaadinimadeeda wata oo sharafteeda wata milkiyeeda wata waa xukuumaddan wasaaradda arrimaha dibadda ahayd muwaadinkan la xidhay xorriyadiisa laga qaadayna ka hawlgasho horta gaabkaasi waa jiraa xukuumad muwaadinka u dhaqaaqaysa ma jirto waxaanan rumaysanahay talabaad ciidan u xiran sidan u dhibaysa ee muwaadinkii dhibaysa inay iyada laftirkooda yihiin because of statement kamay soo saarin kamay hadal umay damqanin kamay marka annaga mas'uuliyadda nasaaro waxa weeyaan inaan taageerayaashaydu u sheegno oo dadkii xisbiga ku xidhnaa u sheegno oo dunida aan u sheegno oo xukuumadda Kenya aan u sheegno muwaadinkaasi inaanu wax dacwada cid u haysata aysan jirin annagu daataan u haysanaa waan ognahay muwaadiniinteedu liis baa noo jira qof ma aragtay kiis maxkamadeed ku socdo iyo qof cid kale dib ka sheeganayso iyo daatadoo dhan database xarunta dhexe noo taala ninka wuxuu haysatay oo oran karayno cidaas haysatay maysan jirin fal dambiyad uu galay oo la cadeeyo bileysku cadeeyna maysan jirin laakiin waxa aanu anagu arkaynaa in ilaa iyo meelo kale
in muwaadiniinta lagu agawaarto noocaasa inay laamaha amniga ama biliiska Kenya cadeeyaan bay ahayd oo isla markaba qof marka la qabto way naga horumarsan yihiin kuweenan oo kale ma hadda habeenkii arooriyinta qofka u soo daato waaran la'aan lagu qabanayo nidaam la'aan lagu qabanayo qofka waa la sheegaa waxa la yiraahdaa muwaadin noocaasa oo fal noocaasa ku galay marka presska qoran shalay baa la xiray ilaa maanta wiilaalka ma garan karayno oo ulajeedka u sheegi kari lahayn dawladdan baa hadin la xajooto iyagu ay weydiyaan laakiin anagu maandeedahan xisbi ahaan waxaan la gudboon inaanu ummadda u sheegno cidda dhibta noo geysanaysa ee dhibta nagu haysata ee annaga dariiqada nagu dilaysa xuriyatul qowlka la dagaalamaysa ee xisbinimada baabiinaysa hanaanka dawladnimo xaafadnimada ka dhigaysa inaanu cambaarayno annagu xaq baan u leeyahay mandatekayga mucaarid saaka waa lagu maqnaa waxaa xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga hawsha ku jiray weli jawaab kama hayo Kenya tigitaankeeda dawladda Kenya ma ahayna waxaa loo tagay safaaradaha international ee meesha ku yaala hay'adaha dunida ee macaamilka la leh xisbigeega ee dareynaya ee jecel dalkan inaanu maamulkiisa iyo masiirkiisa qabano ayaa soo casuumay madaxda cidda tagtana waa ra'iisul baarlamaanka dalka oo xasaanad xisbi iyo tuu qaranba huwanaa isaga la soo kulmay mas'uuliyiinta xisbigana iyaga u yeedhay waxay ahaayeen ilaa 10 safaaradood oo caalami ah lala soo kulmay marka wax toos oo safaarada dawladda Kenya iyo Somaliland iyo nidaamkeeda inta badan ku tacalluqay ma ahayna dad la tago oo safaarada caalamiga ku yaalana meesha da kulan gumaha shirkad ganacsi oo shirkada ganacsi ma hayaan xisbiga cidda tartamayaan waa xisbi kale iyo xukuumad isuwan marka wax kasto xisbigeega treat ku yimaada dadku iyagu u galaya والله دانو دولد من نهين حسب معارض بانو نهاي أنك مركزته وحويان دواقيقا إن الدنيا يتاقيرياشا حسبك جارسينو وعدالة درادة نقول عيسو ومدانو تصنو وأنو دريسينو حكومة وحنا لقبانا سانا نتشرين إن أنا يدي كان نبقلي لا نهاي إن أنا كأمان لا نهاي دوحي تلاقي أنو قادة أنك ورنعي ماي لكن دي مسؤولين حسبك مسير كودا كتلين دونو والله سيقاسو نغندر